boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay fulinayso mashruuc xamil oo loogu talagalay in lagu fududeeyo dadka booqanaya qaar xiro oo kamid ah goobaha ugu caansan diinta Islaamka. Godkan ayaa lagu tagi doonaa mashiinada fiilada ee hawada. Mashiinadan ayaa socon doona masaafo dhan 4 kiiloomitir iyaga oo ku dhawaad 600 mitir ka sareeya jooga badda. Sidee ayay u shaqeeyaan? baabuurka fiiladu wuxuu ku shaqeeyaa mabaadi'da fiisigiska ee fudud, haddana waa nidaam injineernimo oo aad u ammaan badan. Fiilooyinka calaqan ayaa la filayaa inay qaadaan 10 ama ilaa 15 rakaab, waxaana suuragal ah qofku inuu sheedaaliyo muuqaalka guud ee Makka inta lagu guda jiro safarka hawada. Sanadihii hore, xujayadu waxay la kulmi jireen dhibaatooyin ay ka mid yihiin fanashada buurta oo caadi ahaan qaadata wax ka badan 45 daqiiqo, taasoo ay ku xidhan waliba xoogga jidheed iyo adkaysiga xaajiga. Godka buurta xiro oo sidoo kale loo yaqaano buurta iftiinka, buurta Islaamka ama buurta Quraanka, waxay ku taalaa bariga Makka waxayna qiyaastii 4 kiiloomitir u jirtaa masjidka xaramka. Godkan dhererkiisu waa 4 dhudhun. Albaabku wuxuu ku yaalaa bidix markaas oo qofka soo gala uu u jeedo jihada kabcada. Muhiimadda godka xira waxaan shaki ku jirin in taariikh ahaan iyo diin ahaan muhiimad weyn uu leeyahay, maadaama uu nabigeennii suubanaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu si joogto ah u booqan jiray. waana goobtii ugu horeysay ee lagu soo dejiyo Quraanka Kariimka ee Nabi Maxamed in ka badan 1400 sano ka hor. Dadka ayaa booqda godkan markasta oo ay fursad u helaan si ay u arkaan meeshaasi daahirka ah iyo inay dareemaan iimaan iyo ruuxiga nafsiga, indhahooduna uga marag furo goobtii uu nabigu ku cibaadaysan jiray. Mashruucan ayaa qayb ka ah higsiga 2030 ee Sacuudiga si loo hormariyo kaabayaasha diineed iyo dalxiiska ee Makka iyo Madiina, isagoo siinaya khibrad iyo waayo aragnimo dadka booqanaya goobahan barakaysan. Wasaaradda Xajka ee Sacuudiga ayaa filaysa in 15 milyan oo cimraystayaal ah sanadka 2025.